warma waxaan aragnay meyd lala kala wareegayo adduunka intaan saaranay meyd lala kala wareegayo meyd sawti la dhigtay cid male qofka ugu soo horeeyay islaama baasa oo meesha ugu horeysay qofka loo islaamka ay dhinta loogu imaado baa qabriga lagu dhigaa ama lagu budigaa ama lagu aasaa ama lagu asturaa qorigan ku qabto asino qaba meyd la qaba afto la qabo وكان ميت الله يرحمه لا اله الا الله محمد رسول الله كان كحضرن بعد الشيء واللي ما يركض بس ويا خير باردير تشيلنا الله يدين نبدقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا سو دhowaada halkan waa Charmal Daily magacaygana waa Charmal ku soo dhowaada muuqaal cusub muuqaal ma dhihi kara waxaan ku dhihi karaa waa dhaqan xumadii u dambeysay iyo islaamnimo ka baxba baan dhihi karaa warma waxaan aragtay waxa la cimrigaaga oo raaga baan maqal jiray raxmar waxay ku maamaaci cimrigaaga oo raagana geel dhalaaya ku tusaa ya cimrigaaga oo raagayna ama cimrigaaga oo raagayna maanta wuxuu na tusayaa isaaq iyo dhul bahanta oo meyd la kala wareegaya meyd dhowr wiik hor la iska dilay wiil jaamac siyaado wiik hore la dilay dhul bahanta iyo mid sacad yooni soo dhowr oo isaaq oo dhowr maalin ka hor la dilay ya oo maanta lagu kala wareegayay meel maxaa la yiraahdaa adigu guumays agteeda waayo waa meel guumays un eeriyadeeda lagu kala wareegayo warma waxaan aragnay meyd lala kala wareegayo adduunka intaan saaranay meyd lala kala wareegayo meyd sawti la dhigtay cid male qofka ugu soo horeeyay islaama baasa oo meesha ugu horeysay qofka loo islaamka ay dhinta loogu imaado baa qabriga lagu dhigaa ama lagu budigaa ama lagu aasaa ama lagu asturaa laakiin waxaan la sugayaa dhulbaantana inay dhahaan ama la sugayaa dhulbaantana inay dhahaan meydkan lagu aasi maayo dhulkayaga isaaqna dhahaan dhulkayaga lagu aasi maayo codkaas waxaa duubaya ama muuqaalka duubayaan kula wadaagayo waan isaaq wuxuu leeyahay haddaan aniga dhulbaanta la kala wareegaynaa meydkii waana la is salaamaya waana la is qoslay waxaa leeyahay wixii noolaada abti waa la istilaayaa wixii noolaada waa la isu imaanaya markaas waxay leeyihiin waa runo been ma abti waa la isu imaanaya war maxaa haday islaamnimo iyo abtinimadaas sheeganaysan maad ku aastaan meydkan sidataan ee shanta casho yaalay meydkan shanta casho yaalay isaaq oo wada wataan maad ku aasataan meydkan shanta casho yaalay dhulbaanta waa sidataan maad ku aasataan oo meyd qofna ma lahane waa meyd wada disheen qofku intuu lahaa in noolaaba yuudo toliyo leeyahay laakiin hadduu dhinto waa meyd oo magaciisa laga kaxay laakiin meyd waxaan la sugayaa inay dadkiisa iga soo doontaan dhulkayga lagu aasmaayo war dhulka yaala ilaahay muusan lahayn ya war dhulka ilaahay baa laakiin dhaqan xumadii u dambeysay iyo ceebtii u dambeysay iyo Soomaalnimo ka baxday u dambeysay waxay maraysaa dhulbaantaysa kala marayaan iyo meesha u dambeysay istirnacayb baa la kala marayaan meydka la isu diiday inaan la isku aasin awal hore meydka la isu asturayay hadda waxay maraysaa inaan meydba la isu aasinba marka mid nool maxaad ka sugaysaa waa daaba mid nool kaba tagba way meydka la is aasmaayo way waxa dad maqlay umula doox qofkan gabadhan nin baa ku jira laga dooxo ama cunugaysta waa nin buu noqon rabaa hala doox dad maqlay maanta isaaqay dhulbaanta ka dhex taagantahay walle oo ay dhex maraysaa waa meesha u dambeysay istirnacayb iyo istirsafayn dagaalkaas oo kalena waxa kala yiraahdo waa meesha u dambeysay Muuse Biixi baana ka dambeeyay Muuse Biixi waa u jeedaa maanta dhulbaanta iyo isaaq meydkiina la kala wareeg waadna ku faraxsantahay waa dareemayaa waa inaad ku farxayso meydkii waxa kala yeelan la isu aasi waayo oo dhulbaanta isaaq aasi waayeen maanta ay dhahan meyd baa la kala wareegaynaa ceebtu u xumayd muuqaalkaas aan kula wadaagayaa intaan kula wadaagay waxaan ka codsanay waxba hay share garaynina markuu ugu horeysa muuqaalka ii like saar ina subscribe channelka aad iyo aad baan kaaga micnaa commentigaagana waxaad noogu soo qortaa inna ilaahi wa inna raaji'uun ku soo qor iyo bal koob aragtidaada nagula wadaag commentiga waxa ay tahay ama meesha ay marayso waxaas ya meesha ay marayso dhaqan xumadii u dambeysay ay marayso inaan la is aasaynin oo meydka la kala wareegayo war dad nool oo la kala wareegaan arki jirnay ma waxaan aragnay meyd la kala wareegayo la isla sugayo oo lagu la isku xujeeyo ma meyd in la isku xujeeyo la maraya dhulbaanta waxay dhahay meydkayga noo keen isaana waxay dhahay meydkayga noo keen in siin meyd hadii kale meyd cudaan loo kala haysto ama rahmad ya ma waxa soo kala aragta meyd la isku rahmayo ama cudaan loo kala qabsanayo ya inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun meesha u dambeysay maraysa dhaqan xumo waa bartii u dambeysay iyo ceebtii u dambeysay iyo fadeexadii u dambeysay bal haddaba muuqaalkaas ila degayso
بسم الله الرحمن الرحيم ونقا حضرت waxa weey midkii wareejinayna hadaan midkii kala wareegana anaga qoladii jaasiyada odayaasha waa ka xariga jaasiyada midkii kala wareegana haya meeshan joognaa waa marqacada leeyahay midkiina waa ka gaariga saaran insha Allah alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh عرفت او هذاك عرفت ارولال اريا وعندي خير هي نعم والله ها والله نولانا يا افتح هذا نولان وكميت إنا لله وإنا إليه راجعون بل ماشي عفيري وحول أبتي وليه أو أنا هبرير وأسكو خلخلين ميتكي waa kale nagala wareega idina kini waa kale nagala wareega war meydka ma dhinac dhigtaan isku laastaan maxay tahay meydka la wareegay fadeexadu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahu naga qaba kuwaas waxay soo wadaan yaa waa ceebtu xumayd iyo dhaqan xumadii u dambeysay war meydka haduu dhinto cid ma lahan meyd haduu dhinto waa meyd islaam iyo ilaahay iyo gaal iyo islaam waa rabaa in la aaso oo in la aasturo doonaya ma doonaya meyd cid ma lahan waxba hadin waa meyd tacad Yunus iyo waxba hadin waa meyd dhulbaante yaa waa dhaqan xumadii u dambeysay balaan isla dhameysana muuqaalka kuwaani waa wax kale soo wadaane هيا صوصة عليكم السلام وصوتنا صوصة 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 بس باشاو bal dhageyso meydkii baan wareejinaynaa dhageyso mid baa soo wacay meyd baan la kala wareegaynaa aniga dhulbaanta dhageyso wareejinaynaa yaasiin oo qabo qorigan ku qabto yaasiin oo qabo meydka la qabo abtow la qabo وكان ميك الله يرحمه لا اله الا الله محمد رسول الله كان كحضرن بعد الشيء خير باردير تشيلنا الله يدي نبات قلي هاي ولا جروس الوية قاعد يقول جروس الوكيف واتي لقى بدل السيرفت أحمد بلالة هذا أحمد بلالة لا اللي معي لا أحمد مايا هاي لا سهل اللي بيقول يا شو مركي دي ماذا ور ما دوبي لا سهل ليش ور ما دوبي سبدي ما يجيك هذا ور نجرب والله اللي هو قرحنا بنعيا هذا بتنتا ويان halkaasay maraysaa dhulbaantay shaqalkaasay ka maraysaa inay meyd la kala wareegaan oo waxa kale la yiraahdo la salaami waayo mar maad isku bilowdaan intiina meydka kale la kala wareegaysana taasaa ka fiinaan lahayd inaad isku ayaa xabaal wadareed barta leeniga wada sameeyo dad islaam oo kale oo gooni inay yimaadaan inay aasaan oo inta meesha isku dhamaysaan yaa dadkina la kala wareegaya taasaa inay dhaami lahayd ceebtiina iyo Soomaali la kala wareegaysa meyd oo isku xujeynaysa meyd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war muuqaalka intaas ku soo koobaya